كسلادم مدن مدحوينه وحاصل أشرف هذا ديار واحد إذا مدى قلب كسده مدن مدحوينه qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida kooxda muusikada iyo saxaafadda iyo kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan marka hore u mahadcelinayaa wasiirka iyo taliyaha oo aan odhan karo muddadii hadda ay joogeen ee dagaalkan hawshan la bilaabay inaynan fadhiisanin maalinta ay noo imanayaan iyagoo safar dheer soo galay inay saacad wax ka yar magaalada muqdisho transit ku ahaayeen haddana ay saacad walba u taagan yihiin hawsha u taalla iyo wax ka qabadkeeda. waxaa kaloo rabaa inaan bogaadiyoon u mahadceliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan odhan karo wuxuu qaaday tallaabo cad oo ah la dagaalanka al-shabaab isaga iyo dowladdiisa wasaaruhu hogaaminaya xamse iyo golihiisa wasiirada iyo taliyayaashuba inay qaateen go-aan ah waxba lama qaban karo iyadoon waddanka la xoraynin. shaygaasina waa wax ugu muhiimsan. waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo deegaanada sida gaarka ah isaga xil saaray kudayashada mudan howlgalay tusay waxaana inay yihiin ilka doofaar oo wax waxa jebin kara aynan ahayn gaar ahaan reer hiiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taalada waddanka ku taalla beledweynaha laga wareejin doonaa taallo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka xoreysay khawaarijta waddanka Soomaaliya ka saartay sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban kara waxa uu yahay مدحوينه waxaa kaloo rabaa inaan ku celiyo oon
u sheego deegaanada kale waxaan kaloo rabaa inaan u sheego deegaanada kale gaar ahaan hadda hirshabeelle oo guud ahaan iswada raacsan barnaamijka wadda koonfur galbeed oo bakool barnaamij ka bilowda iyo halkaan oon ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba shabaabku waxyaalo badan bay kusoo dhexgeli doonaan dadka waxay kusoo dhexgeli doonaan waxaa ugu badnaanaysa inay wax u sheegaan odayaal wax u sheega qayb iyo xukun waagii mustacmarada lala dagaalami jiray gumaysaha waxaa la odhan jiray gumaysigu wuxuu yaqaanaa wax la yidhaha qayb iyo xukun oo dadka in la kala qaybiyo wax loo sheego waxba kama jiraan waxay idiin sheegayaan waxay culimmadu ka hadashay siyaasigu ka hadlay qof waliba uu ka hadlay qof kasta oo nimankaa garab siiya oo dhaqaalo ku bixiya oo yidhaa cabsi baan u siinaya xataa ilaahay uu ku cadaabaya sababtoo ah dhibaatada dadka loo geysanayo waxaad adigu bixisabaa qayb ka noqonaya markaan intaa ka soo tago mudane wasiir iyo taliyaha ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la qaybihiisa kala duwan ama danab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u samaynay wax badan oo goboldhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisiina markaa loo sameeyo dadku iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ay la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ahaa ee amniga kala shaqayn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee bannaanka ka joogi lahaa ee amniga kor ahayn lahaa ilaan kuwaas shacabkay ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u samayso booliskii u dayso nabad sugiddii u samayso ciidamadii ay ku dhex jiraan ilmaha yaryarka aad buskut siiso maamulkii aad gaadhsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yaryar shan jirkii inuu kuu sheego aabbahay qori baa u yaallo meeshaasu aadee waxaasu samaynaya laakiin hadday noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo samayn waayo oo amnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilan way is yaqaanaan oo shalay bay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adigu warkii aad qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diidayso taasaa markaa waxay tahay in la diyaariyo intaadan weerarka qaadin inaad ciidankii qaban lahaa amniga sidii loo hayn lahaa maamulka sidii maamulku inuu noqdo maamul dadku kalsoon yihiin oo aan dibadda looga keenin oon lalahayn qof baa lanoo keenay tuulada la qabto iyada dhexdooda markii dib loo baadho in iyada dhexdeeda looga magacaabo inta loo dhisayo maamul dhaba heerka saddexaad ee dowladnimo oo kawnsiladii iyo golayaashii deegaankaana sidaa lagu bilaabo taasaan u diyaargarownay marar badan baan ka hadlayn inaan weerar qaadno laakiin annaga lafdhabarta shabaabku waa gobolkan sababtoo saldhigoodu waa gobolkan meesha ay u soo gabadaan u soo cararaan waa halkan meeshay shaqada ka gelayaan waa halkan wax waliba halkaan ma dhaafayo waxaan rajaynayaa saaxiibadana gobollada dhexe iyo reer hiiraan iyo culays ku dhacayahay markaan hadda bilowno in culays badani ka soo degi doono lana isugu iman doono oo halkaan ay noqoto meesha lagu soo afjari doono haddii ilaahay dhah qubuurahooda ugu badani gobolkaanu noqon doonaa aad baad u mahadsantihiin waan idiin mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku ognahay waa howlgal waxaan isku ognahay waa tallaabo aan qaadno waxaan isku ognahay waa dadka inoo yeedhaya waxbarashadala caafimaadkala gargaarkala noloshala wax walba ku silcsan ee inoo yeedhaya inaan u tagno sababtoo qofku gurigiisa iyo beertiisa meel uga baxa ma leh labadiina nolol kuma haysto waxay sugayaan waa inagaa la inoo yeedhaya maanta wiilasha halkaan horti dhisho waxaa ka mida kuwo badan oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood shabaabku ay gacanta ku hayaan oo ka soo cararay oo iyaga maalin walba la ciqaabayo oo laleeyahay wiilkiinii hebel ahaa keena laakiin diidayn aabbo ama iskaga soo tagay laakiin anugu kuwaas sidan kula noolaan maayo in badan oo ka mid ah saa maanta ku joogta taasaan isku ognahay aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu